kormeerkan uu sameeyay afayeenka maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Nuur Dabaasha Cagajoof ayaa ujeedka kormeerkiisa waxa yahay sidii uu kurkuri lahaa ganacsiga guud ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo waliba sidoo kale isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo dhawaan laga diiday magaalada Beledweyne hase ahaatee amar ay dhawaan si wada jir u soo saareen maamulka gobolka Hiiraan ee ganacsiga Beledweyne oo ku aadanaa socodsiinta lacagtaasi oo uu ogaalaha inuu dhaqan galay oo ay socoto lacagta in kale waxaan afayeenka uu suuqyada magaalada Beledweyne ku soo maray socod dheer oo lugta ayadoo bulshada kala duwan ay ku ganacsanaysay hareeraha wadooyinka ugu badnaatay dadka danyarta ah ee waxyaabaha yarka iibiya oo kala hadlayay sida ay u socoto lacagta shilinka Soomaaliga waxaana dhaxmarayay sheekooyinkan soo socda magaalada haday israacdo ay qaadanayaan waa qaadanayna laakiin intii la diiday ma qaadanayna anaga waayo dadkii aadna dhacay 24 saac wuxuuna diyaar u maray hal lacag iskilaale anaga ma qaadan ma qaadan baawku baarnaa hada aniga lacag badan ay taabay dawladda oo inta suuqyada kala duwan magaalada Beledweyne sida sarrafka oo kaleeto lacagihii mataqaanaa Soomaaliga hay wixii ka suura galay ee maamulka iyo ganacsiga isla go'aamiyeen in lacagtaas la qaato wixii ka suura galay waxaan ka suura galay soo sameeynay maanta soo sameeynay kormeer soo sameeynay aan kala tagnay suuqda kale oo dhexe waa diintiin muwaadinimada markaan soo galnay meesha ugu dambeysay waa lacagta Soomaaliga diiday shilinka Soomaaliga war lacagta Soomaaliga ee ka socota waacadan oo ka socota halgan oo ka socota buurbuto oo ka socota jallas oo ka socota jowhar oo ka socota balcad oo ka socota muqdisho oo ka socota kismaayo war lacagtaas qaata yaa idin diiday dawladda qaado war lacagtaas yaa idin diiday lacagtaas qaata waxaan la yeelay lacagtii Puntland oo ugu dhacmay qofkan ku aragna anaga la xisaabtamayna anaga xabsiga baawkan ku aragna waa qaadanayna dhinaca kale afayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa kormeerkiisa wuxuu ku soo maray hareeraha webiga Shabeelle oo laga cabsi qaba inuu ku fataha qaybo ka tirsan xaafadaha magaalada Beledweyne maadaama uu webiga biyisayd wada waxaan uu bulshada kaga digay in hareeraha webiga ay ku dhawaadaan Cabdishakuur Maxamed Xasan Saab TV Beledweyne.